wanaagsan dhammaantiinba waan salaamay saaxiibada YouTube oo aan baryahan maalmahan sarag oo 3 week ana waxba u soo duubin waan ka raali gelinayaa dhinaca Facebook kol baan iyada salaama laakiin waxaan joognaa maanta magaalada Addis Ababa sidaad ku ogeeyeen baan baryahan muuqaal ka sameeyay waxaan joognaa meel aan ka fogeyn Boolimakel hotelkeena waxa la ilaa Tises Soomahay Tises Hotel ayaanu bunkii ay caanka ku ahayd magaalada ka cabanaa Ethiopia welina lama shubin sugeynaa ninkii Cabdimasiidna waa kan marka magaalada maanta xaafadan oo Boolir Rwanda leeyahay gaar ahaan suuqa China Soomahay suuqa China aynu aadi doonaa muuqaal ka sameyn doonaa suuqa China aynu duubi doonaa quruxdiisa sidoo kale xaafada si dhaxmari doonaa markasta sidoo kale waxaad weydiisaa kirada xaafadaha iyadana way ka sheekeyn doonaa Cabdimasiid baa laga yaabaa inuu xogaal u yahay maxaa yeelay markasta waxaad Addis Ababa misaal lagu kirayaa soo weydiisaan iyo kirada ka soo hadal marka iyada kirada waa idin sheegi doonaa quruxda xaafadaha soo duubi doonaa marka Cabdimasiid saaxiibaday maxaad leedahay dhammaan horta aad baan idin salaamayaa muuqaalka maanta aan Addis Ababa aan ku duubi doono maalmahan Addis Ababa khadar baan martay ugu ahaa mar haddaad aragtaana waad iska xaqiiqsanaysaan inuu khadar Addis Ababa joogo marka kullay arimaha aad hadda soo halqaatay kirooyinkii waxa dad badan baa kullay muuqaalo hore lagaga hadlayna way jirtaa imikana maxaa la dhahay sheegay dad badan oo ku soo weydiiyay maadaama aad sheegtid falcelinta ama commentiyada ugu badan dadkeena ugu xiran inaan u soo gudbino maanta marka insha Allah muuqaalkeena inta ugu badan wuxuu ku saabsanaan doonaa inta Boolimakel iyo waxaan tagi doonaa sidoo kale xaafada ay Chinaha ka degan yihiin magaalada xaafad baan soo suuqa suuq iyo xaafad inta wixii hadda Boolimakel halka ka jira oo dhan waa meel ay degan yihiin Jabaaniiska iyo Chineeska marka in qoon bunayn doona wax yar kadib wax kadib aan bunayn doona kadibna muuqaalada dib bilaabi doona aan bunayn doona maxaa hada bunkaynu cabi doona qofkana garanay ma sheeg meebo maray ma bunka waa fahmi doona marka muuqaalkan hadii soo gaaro wixii la saarsaay jiray saar badlad subscribe iyo like iyo wixii la saasan isku ognay saas anigu bun madow baan dalbado wali leema keen laakiin ninkii Cabdimasiid isagoo dalbaday makiyaate ku leeyahay hayaay horta gabadhina way noo maqan tahay oo kullay wili lama keenin bunkii caadiga ahaa ee Ethiopia ay asalku ahayd waa kaas laakiin anu dalbaday kan siiniga ee madow ma jecel inta badan hay lambar ruux waa kan day andayaan soo qaba fiican laakiin aniga ma jecel shakhsi ahaan waxaan jecelahay kan mashiinka lagu sameeyo makiyaatadaasaan jecelahay oo waliba cadaan ah makiyaato muxuu kaga duwan kale nala casriyay baan leenahay asxaab makiyaato waa mid wadna gariir la yiri kan de waa bunki rasmi weeyaan kanna de waa bunki qayb kamid oo lagu daray maxaa la dhahaa oo labada kana lagu daray kana bunki rasmi ah hada hayaay oo kaasan cabaay aad buu qaraar yahay aniga kamaha qaraar kaasan cabaay waxaan jecelahay kaasan jecelahay qaraar kaasan dhaaf iyo kana fax ku noqda aniga ma garatay Ethiopia marka hadda joogtid oo aadan bun cabin kuma ah maalinkaas maalin hal ama labo hadaan cabin anu kii labaad baan cabaya maanta mar hore waan dhakhtar hadda ka hor aan tagay bunka iska yareeyo 6 bilood ka hor may bunka badsab igu yiri bunka badsuku yes ayaa wuxuu igu yiri liiga maxaa la qof anu bunkii imka waan la qabsado waan cabaa laba jeer saddex jeer mar uma cabbi sidoo kale waxyaabahan ku kala duwanahay reer Ethiopia iyo reer Soomaaliya waxa kamid ah xumbada yar ee kore ee shaaha uu leeyahay inta badan Ethiopia dadka jooga ama Soomaalida Ethiopia joogta iska qaadan inta badan saas iska qaadan oo ma isticmaalaan laakiin haddii aad Kenya aad tagto ama aad tagtid maxaa la dhahaa sheegay koonfurta waa lagu cabaa way naga reer magaalsan yihiin baan u maleynayaa nin Irish saaxiib ahayna uu ku cabi jiray xumbada uu ku cabi jiray oo Irish waxaan u maleynayaa bari baad Irish saaxiib la badownimada u maleynayaa inay tahay way badownimada inay hayso Ethiopia badow weey roob baa jiro oo anagoo xataa dalad iyo astina safar ma lahayn taas horta ku dar waxaan u sheegnay waxaan joognaa xaafada kamid ah xaafadaha Boolimakel macnaha xaafadaha joognaa Soomaa yes marka muuqaalkii imka qaybiis kala bilaabana suuqii China tagnaa de hadda daladan aragtana hala yaabin aad sabab roobka lagu duceeyaa siro markasta roob badaaya marka roobkii imka waa magaalo barwaaqo roobkii imka laga qaaday roobku naga qaaday hotelka yare xalila halaa hilal wallahi hilal hotel baan hormarana saacada laga bilaabo dalada waan iska baqtiyana roobka naga qaaday muuqaalkan insha Allah inta ka gaarsiin doonaa
marka inta aan siino waa kan igala wareegba horta khadarow magaalada Addis Ababa waa magaalo iska barwaaqaysan ma garatay waa magaalo iska barwaaqaysan weeye magaalada maadaama xaafadii dhex marano dadka waxaad yar sheegtaa kirada maxaa lagu kirayaa xaafadaha kulley aniga dilaal ma yihi kor yar qabo أنا كل دلال مي حافظها هذا دلال أنا هي مفوقة هي لكن كل دي حافظها دي بعض حلقة هراء إيش اللي جاي كري كري كده مي أنت إيه قياستي معنا حافظها أنت لو كريو قريها لمبر 1 لمبر 2 مسافة قياس له قف يمكن تضرب في أي بي هيك صراحة قروين أو معناها صد مقسم أفر مقسم ملاه مثلا وكذا هذا قري وين هاي oo saddex maqsin meelahaas uu yahay waa adiga laba qol oo chief iyo fadhi saasaan fahmay chief iyo fadhi waxa lagu kireystaa ilaa $800 meelahaas $800 $700 $800 waa VIP ga waa qaali guryaha VIP ga inahaas lagu kireystaa marka kuwa ugu hooseeyana $200 meelahaas lagu kala kireystaa waa intaan ka ogahay sidarka samba waxaan iska sii dhex soconaa xaafadihii aan iska sii dhex soconaa joogu aad buu quruxdiisan hore ku sheegnay roob baa imika qaaday markaasaan Addis Ababa inta badan cadeedba mala bariyahan baashan naga baqti saacada laga bilaabo kidikeeda bud baan ka dhiganay warsay noqotay asmayra yes soo isku laabaya markasta markale adigu qosaysa dalada saad u gashay waa ka dalada anagu wax xidhan jiray ma nahay nayo ya Addis Ababa waxyaabaha ay ku hormartay waxa kamid ah walba dhirta guri walba hortiisa dawladda waxay waajib kaga dhigtay qof walba inuu gurigiisa hortiisa uu dhir ka beero marka maalin dhaweed wasiirka deegaanka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa in guri walba laga beeri doono hortiisa geed in laga beeri doono marka waxaan Soomaaliya dhirta sida lagu qurux waxaan marka aan yani dadka Soomaaliyeed inay Itoobiya kaga doodaan qaybtan dhiraynta سلام وطن سلام وقعه كنتونو حفتون احمرنا قروح ياس باص إيه مرة محل لا wadada Booli Mikhail ay aaday inaga dambaysa halkan hotel la dhaho yaa Fooli ba ku yaala so waxaan u socnaa imika hotel yaa Fooli makamba golden cafe baan u socnaa golden cafe waxa iskugu yimaada Soomaalida aad ugu qaba kugu haya waxa iskugu yimaada Chinaha iyo waxa isugu yimaada Allahu musta'an iyo Soomaalida waa halka ay isugu yimaadaan ay ku qaxweeyaan suuqa Chinaha wuxuu naga xigaa ilaa iyo 500 oo talaabo noo jira marka golden baan ku horeynaa mise fiicantiin qareejise حسيدة بقول لا ده باشا هاي ما كاش ما يصح ايه برتة بدنا عمارية من عماري بقولو عمارية بقولو وبقول حبا كنت ترتم ويا معناه صومالي حسيد بالا غيرتها كاش يلم اوكي بقولو لان تاو كيد سلا حسيد نيو كاش باوي كاش باوي Ethiopia waxa lagu imtixaanay ma taqaan كاش كنا lacagaha digitalka ah ma aaminsana waa in hard currency una u dirtaa wada aaminsana in lacagta in kale لان تاير حسيد هيدان كيب سير marka كاش باوي أنا guriga hortiis qurux weyna
قولي ما كان واحد سفارة ويا الامباسي سفارة سوشياليتي ريبوبليك اوف سريلانكا سريلانكا سفارة سفارة سريلانكا إلا waxaan qurux badan mooday guri baan mooday wala waa garanaysaa intiina meelaha maratay waa safaarada Srilanka Soomaaliya dhafka jeceshahay Srilanka hadda tagaysaan safaaradeedu waa taa Srilanka ma dirnaa Srilanka waa dalka yar iska fikirka cidoo ma tagta malaha dalxiisayaashu waa laga yaabaa inay tagaan biridu ku xad insha Allah YouTuber weyn ga dhigtaan saayu ka kiisan daas waa xaqi booli bay tagaysaa soma gurigan qabyada macna leh kan qabyada gurigan uu bismillah kaaga un buu eegay dhinacan un baa tusaya dhinacan aan tuso magaalo halkaas ay naga jirtay magaalo halkaas ay naga jirtay wata xaqana waa xaqi aan waxaan soo soconay ma garatay wali waxaan ku soconaa suuqii China iminka waxaan sii maqlayaa buuqiisi ma soo maqlayaa Soomaha soo run ma sheegayo inuu buuqaasi yahay suuqii China heesahoodii ba shiteen heesahoodii inkastoo kuwa xabashooyinka ay ku badan yihiin kulli qaar badan oo tuuga mana gaari sidii How are you? Can you speak? Are you nice? Bye ayo. Oh, meelaha kale waxa ka socday xaflad weyn oo xagan ku qabo xafladna waxaas ma baarbo waa nin dhan oo la caabuday naagtan soo laandheero ma ku qaba iyada loo baalasheynay kala laandheero loo baalasheynay meesha ay sheeg golden baan u dhawnaay meesha maxaa ka jiray ma fahmin war meeshan nin nabinimo sheeganaya yaa la caabudaya oo sixrool ah wala oo saaxir ah haya madaxan bulshaa ku qaadano wada dhiciba dab dhulka ku dhacis ninkii maxaa tii ninka meeshii ninka nin baa khuraafaad dadka uga sheekeeya igu soo khuraafaad dadka uga sheekeynaya nin baa khuraafaad dadka uga sheekeynaya oo wuxuu oranayaa iyadoo 2024 la marayo iyo nabinimo sheeganaya ka aqbalaya waalan ka aqbalay baa waalan sama marka adduun kulli ma xagan saxga waa xagan soo dhaafnay golden dabaqan imisa u malaynaysaa dabaqan waxaan ku qiyaasay inuu yahay 20 biyaan adan tirinay sheeg way 20 biyaan ku qiyaas waan tirinay hadda tiri way tiri saaxiibada roo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طبيعتهم والله سيجار واسكتها وطبيعتهم طبق 20 نيل وجيب بلا 17 وي يا وجيب بلا 17 وحاجات waxaan soo gaarnay suuqii China yes warkasa kaamadan iyo waxaan dhawaaqay kaamadan iyaga iska leh waqti China warkasan waqti China warkasan hadda meeshan China halka ku yaala dukaanka wax ma ka iibsan waxaan ka iibsanaa alaabtii Chinese halkaan kii cadaaba kii casra cunay yaale يعني سوا ضد في سكيل بحو مرة دوينا سلامة يعني نقول خاص كم مرة لكن هو مليون بيرو وقروح بدن أيه كانوا خلوه هوتيل سما يس كان محل إيه هوتيل كان هو جاست هاوس waxaan buushariya meesha ku yaalo dhan Chinese baa waxaan iyaga la suma xaafad ahaan iyaga degan suuq wadan halkan ku yaala suuq waxa soo darkasan farta China ina intan markaad dhex maraysid waxaad moodaa inaad China joogtid magaalooyinka China magaalo kamid ah ama gobol kamid inaad joogtid wararkii meel kasta ku qorayso ayaga ku qaba ay China saxta heliyo baasaboorro iyo wax wata taban gasho soma waxaad arkay ay baasaboorro wata ayya oo immigration ka soo maro fiisa ku soo galay wadanka fiisa ku joogo meelaha ilaalinaya عجيبة. أو Chinese دي. أو أي لغة يا شيخ. يا هني. ما حد حاس. China عندي. يا China food no. China food no. يا مدينة. مدينة. يا China. بتشانو مي بالله. لينا سوي بالله.
China bicha. Min yibana. Ya? Yemesgib. يمسك ها waxaan maranahay imika halka khudradda waxaas oo beed halkaana hilibka doofaarka lagu iibiyaa iyo kalluunka doofaarka ah hilib doofaar ma aha kitiirka iibiyaan haday doonaan quraanjo xitaa way iibiyaan dadka waxay doonaan iibiyaan waa suuq weyn quraanjooyinka xitaa lagu iibiyaa wixii halka imika goolina salaam low qaba ku qaba salaam low kula soconayaan iyana waa hagaag waxaanu joognaa suuqii Chinahan goorahan baduubanay saad arkayseen oo muuqaalkiina halkuu soo socdahay suuqaynu ka dhex taaganahay soconayna markaa oo soconayna suuqii baynu dhex maraynaa marka Khadar Omaro maxaad ku aragtaa hadda suuqan Chinese-ka meelihii hore aad joogtay muxuu kaga duwan yahay waxaan ku arkaa khudaarta aad u faraha badan ay iibinayaan dabaqanna waa Chinaha un baa iska leh dabaqaa soo jeedana hotel ama apartment ee degan yihiin khudradda caan ku yihiin nimanku aad u weyn halka khudrad kale halka waxaas aad u qurxoon yes wadaad ku qaba marka khudraddaas aad u cunaan aaraadubihii iyo hilibka doofaarkana ku qabo kaaye halka doofaar baa ku sawiran ma aragtaa oo ku qaban wararka ay ku qabo boorka ku qabo waxa yaala hilibkii waa hagaag weli waxaan dhex soconnaa suuqii halkaa waxaad arkayseen hilib doofaarkii iyo wax walba hotelkani kani waa hotelkooda ugu weyn hotelkooda waa hotelka quruxda badan ee aad ku quruxda badan hotelka magaciisa muxuu ahaa hotel Chinese wallah tong wallah tong xalila tong wallah tong tong hotel hotel meesha macal waxa yaalay hilib doofaar listen Soomaalida lagu xanaaqane maxay idin geeyaan oo leedahay leedahay geeyo wala ag marno ma yaan cunno Soomaalida waxyaabaha sensitive bay ka tahay sensitive waa wax diinta ku tahay wayna saxan yihiin wayna ku saxsan yihiin way saxan 100% yes marka imka xaga socnaa golden cafe baan tagaynaa sidaan hore ugu sheegnay daawadayaasha so golden cafe wax yar buu inoo jiraa waa maqaaxi ay ku qaxweeyaan khudradii kan maxaad u taqaanaa kan basal ka tan haatan ala dubbi mindano radish maimu sentino ليزرين كريستال سنتنا أطبق بس بمندنا مسرة بتشينا فودنا تشينا كاروت تشينا كاروت من يبالن ها يبالو يا تنتنو كيستان كازم كما دو كارستان دينو كابش ميدنو كابش يا دونقرة يبالن يا مسكت بالال من يبالن brother I want you to tell me some names about this. What's name this? Radish. Yes. From China or Ethiopia? Ethiopia. It's a good one. It's from China. No. This one from China, Ethiopia? Son? This one. British of Ethiopia. Ethiopia, yeah. Yes. This one? This one onion. Onion is English. Amari amidino? Shunkur. Shunkur. Tomato is a tomato. This one cucumber, salad, cabbage. Tell me that name. Sun Chinese. Sun? Chinese. Sun Chinese. From China or here? How much item from China? This one. How much item from China? Chinese. From China only that one? Yeah, salata. The same. Salata? The same, yes. What's your name? Abdi. Abdi? Yeah. Abdi is in Somali. Abdi Mahmoud, yes. Abdi Mahmoud. Yeah. He's Somali. It's same. Yeah. My name is Khadar Yusuf. Yeah. Abdi. I think you are. Amhari kula hada. Waxa ka baxa. Amharic. Amarinya. I can speak Same Amharic, but I try to speak English.
سيمانو أمارك Amharic Abdi. عبدي Mahmoud. إني خضر Kadir. آه Yeah. I'm YouTuber. Kadir. Do you know YouTube? YouTube. Yeah, I'm YouTuber. YouTuber. You can see your video if you subscribe my YouTube. Okay. YouTuber app. Yes. You will No search problem. Khadr. Subscribe. You will subscribe. Yeah. Okay. I think you are. Thank you. I think you are Muslim. Muslim yeah. Well, alhamdulillah, ما شاء الله. Golden Cafe way halkani oo maqaaxi caan oo area caata marka waan galnaa Golden waan naga soo galay waxaana loo xafidey ma sha Allah shaqaali Golden baan salaamaya. How are you? waa shaqaali Golden marka Golden soo Golden coffee. Golden Cafe. Yeah, Golden coffee. Where is Golden Cafe? Here. Bole Rwanda. Bole Rwanda. Bole Rwanda. Yeah. Addis Ababa Bole Rwanda. Welcome. Golden Cafe at the Addis Ababa Rwanda is the best place. My friend, how are you? You are fine. I'm fine, good. You here? Is Boli Rwanda Golden Coffee? What do you here do? Yeah, and Golden Coffee is good, nice. What do you tell us, my flowers? Yeah, my followers or the customer is different. Beautiful. Okay, thank you. What's your name? My name is Admas. Admas, yeah. Okay, thank you, Armas. Welcome my YouTube. And you? You name Khadar. Kader. Okay, thanks. You say welcome. I will come in Addis Ababa to Boli Rwanda location. Yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you. وهاي صاحبتي soo dhawaada mar kale wali waxaan ku dhex jirnaa muuqaalkeenii imka waxaan joognaa maqaaxida Golden Cafe ee magaalada Addis Ababa Rwanda say inoo sheegay shaqaaluhu ay aad inoo soo dhaweeyeen waliba haddii moodaysa ay soo dhaweynayaan muuqaalka soo diyaarsan lahaa sidii Soomaalidu aan yar sasatafkeed bal moodayo oo yara faqfaqanay marka hore kamarada kala dhacay laakiin aad bay soo dhaweeyeen iyaga bay uga hor yimid oo kamarada doonay marka maqaaxidan quruxda badan Chinese ba jooga Soomaali ba joogta all Africa you can get asalka Soomaaliga kamarada ka riyaacay marka waxa la ku soo dhawaada Rwanda iyo cafeteria ugu shidan Rwanda ee Golden saaxiibkay Cabdimajid oo kamarada duubaya ma oran jiray Golden baan ku geynaya maalin kasta marka qaabtay loo soo gashay intaas oo dhan waxa ku jira anaga qaabta ma haleeyay marka Cabdimajid ayaa galab kasta oran jiray macnaha waxaan ku geynayaa Golden galabta waa kan Golden keenay halkan niman cadaan ah fadhiya sadarkisan marka Cabdimajid ku soo dhaw Golden ma macmiil baa tahay abay macmiil si fiican baa horta shaqaalahan ay garanayaan runtii marka aan shaqada ku soo daaro halkan xaafadeedana way u dhowdahay shaqada markaan ka soo baxo ayaan imaada ayaad iska fadhiisataa waa meesha aan ku nasto weekendiga sabtida iyo axad oo kale sabtida nasashada aan ku jiro waa meesha aan ugu jecelahay inaan fadhiisto jimcaha nasataa marwada markaan soo kaxaystaa halkan aan ku nasanaa adigii marwada markayna iyada ila joogin cidlan dareemay halka baan ugu hambalyeena adigii marwadaadana sharaabka lagu keeno nooc xalay keenay strawberry kayguna oo saddex nooc